degmada xudun ee gobolka Sool waxa saaka la wareegay jamhadda xaqudirka ah ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxayna hoos u dhigeen calanka Soomaaliland iyagoo saaray calanka qaatumo ee maamulkaasi waxayna rij buluug ku buufiyeen astaamihii calamada Soomaaliland ku xardhan afgarayaasha magaaladaasi jamhadda xaqudirka iyo taageerayaasha ayaa isugu yimid fagaraha xorriyadda degmada xudun ee gobolka Sool waxayna halka kula hadleen shacab kala duwan sidoo kale waxay taageero mid loo muujiyeen 33 gudida ee dhulbahante iyo fiqishini waxayna sheegeen in mar walba garab taagan yihiin go'aamada ay soo saaraan gudigaasi waxayna guud ahaan bas ciidamada Soomaaliland ugu baaqeen inay ka baxaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn sidoo kale ugu horreyn waxa halka ka hadlay taliyaha jamhadda hogaaminayay taliye gaadhgaadh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu nahay jamhadda xaqudirka gobolada SSC Sool iyo Sanaag iyo Cayn qolada isaaq waxaan leeyahay ismadoodu waxay dhaheen dhulma guure dad baa guura dhulma guure dad baa guura haddaba yaryaga dhulka ku fiiday ka guureen anagu ma guurano dalka yagana anaga leh calankaasuna sida uu halka u furay uu sarnaanaya wiilka ka rogeena ha u yimaado wiilka ka rogaya ha u yimaado haddaanu indhaha dib hore uga qarsan mayno inta aan wiil laga hadhayna waa ku dhimanana dalkayaga iyo dadkayga gabadh maalin dheer suuqa dhexdiisa lagu dilayo maaha waxaanu dul qaadan karno waxaanu yeeli karno maaha waxna mari kara maaha haddaad dad islaama tihiin horta haddaad islaama tihiin waa la inaabiyey ismadaa inaabiyey dumarkaa inaabiyey shacabkaa inaabiyey waxba waad ku qaadan weydeen haddaba kaasaana kala saaraya qori waxaan hayno kala saaraya ma jirto waxaan idin kaloo idin leeyahay oo aan u sheegayaa Muuse Biixiyow adeer xiliyo laysma dhibaadiyo taariikh baad u doonaysaa sacab Muuse u doonaysaa huuna taariikh u doonaysaa aan taariikh lahayn xabaalihii gaaladii aan dilay baad siyaarataa ee Hargeysa aan dhigay ee ku aasan aniguna waxaan ahay Muuse Biixiyow kii dhaymoole markii gaalka uu macatabka kuugu wiilashaadii u xidhay adigaaba ka mid ah mayaabaha ahaa markii macatabka uu xidhay gaalku kii ka furay baan ahaa kii 6,666 hal maalin xudun meesha laga jid baad ugu laayay baan ahaa si aan diinta islaamka kugu soo celiyo ma yeelayo kama yeelayo maleehi mid caruurtiisa aad ku layso laascaanood aqligayga ha caayin aqliga dhulbahantana caybay ku tahay waxaan idin leeyahay dhulbahantaan hal oranaya horta kacdoon karima istaagayo wuuna socdaa israaqow aqliga ka shaqaysiya wuxuu yiri saad la cilmi aabe Abdullaahi oo tali oo dib u tali war waxaan leeyahay wax garadkaysa hadii wax garad ku jiro war waxaan leeyahay salaadiinta war waxaan leeyahay cuqaasha war taliya war hooy dib u taliya war dhulbahanta maanta waa mid war waxaad naga faa'iideysatay kala qaybsanaanta war SSC mid weeye war nama celi kartaan dhulbahanta waxaan leeyahay iyo reer SSC waxaan idin leeyahay adeer ismada isugu yimin laascaanood ee dhulbahante waxaanu ka sharaf badnayn idinkoo dhowr iyo 30 waxaanu ka sharaf badnayn markii labada isim kaliya aan lahayn kan Faarax Garaad iyo kan Maxamuud Garaad kaliya ahaydeen baanu ka sharaf dhulbahante ka sharaf badnaa maanta nin yaad koofiyadaha caad u soo qaadateen yaad ciidamadaha iyo gawaarida caad u wadataan waar jabhadeeya isaaq waxay ka soo noqdeen Ingiriis bay ka yimaadeen oo Mareykan bay ka soo noqdeen ku markay jabhadeynayeen oo culimadooda iyo waxgaradkooda iyo caaqiladooda iyo ismadooda qoryaha qaatay waar isaaq ku tagi maayo qorigu ku tagaya qori xabad buu ku tagaya xabad hal jabhadeeyo reer SSC waxaan ugu baaqayaa
warcad baan idinka rabnaa nimanka la yidhaahdo baynu ka rabnaa isimada oo degdega laascaanood ha noolaato soomaaliya ha noolaato SSC ha noolaato ha guulaysato sacdaynku ha guulayso SNM ha baxdo SNM ha dhacdo muuse biixi ha dhaco ina kaahin ha dhaco idinkuna noolaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dowladda maamulka Soomaaliland ee jabhadda SNM waxaan u sheegaynaa maamulka Soomaaliland waqtigii waa soo dhamaaday qabcadii way dhamaatay aad noo daadin jirteen way dhamaatay alihiin hadduu alla yahay waxaanu doonaynaa dad deerisay nahay inaad si nabadgelyo nooga baxdaan haddii aydan bixin shahiid baanu nahay qorigaasay noo dhax qori caaradi been oo dhaxa kaasay noo dhax la taagay noo dhaxa qabcadii way soo dhamaatay naga baxaanu idin leenahay inta waxa wehelisa waxa la idinka faa'iiday laba la idinka faa'iiday oo dhulbaanta idinka faa'iiday dawladda SSC iyo khaatooyada SSC idinka faa'iiday maamulada waxa idinka faa'iideen xadhig iyo xabsi iyo xasuuq labadaas idinka faa'iideen war miyaa rabtaan naga baxa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo baxna inaanu taageero gudida laga doortay degmada Laascaanood oo uu hogaaminayo garaad jaamac garaad cali garaad jaamac garaad Ismaaciil gudidaas ayaanu saakay inaanu taageero isugu soo baxnay go'aamada hor u dhaca ee ka soo baxayna waa ku qanacsannahay annagoo ah beesha Maxamed Siyaad degmada Xudun waa ku qanacsannahay waxaanu ku faraxsannahay dhulbahante oo uu qaybiyay maamulka Soomaaliland colaad baana uu dhex dhigay mar hadday maanta cadowgoodii arkeen iyaga isku tashanayaan meel looga soo wada jeedaan taana waa ku faraxsannahay kaga hadlayno dalka ay maanta aynu isku haynaa aanu inaga dhaxayn deris guud baynu nahay derisnimadeena inaynu ilaashano guud baa loo baahan yahay laakiin xal kale oo inaga dhaxeeya iyo dhaqan kale oo ina dhex yaala ma jiro midna ma jiro waa kuwii Hargeysa iyo Burco iyo inta ay sheegtaan ay isxigaan waa kuwii wixii halkana wixii bay la soo galeen waxba inaga ma dhaxeeyaan habar jecel qaybaanu maqlaynaa hadlaysa habar yoonis waa maqlaynaa waa inteeda reer baadiyaha ah waxa aad ku hadlaysaan ay leedihiin waa inaga kuma raacsanin waa sax anaguna ma rabno inay saan noqoto waxaan rabnaa inaad ka baxdaan haddaa bixi weydaan wixii loo kala dhashay ee la kala ahaa la ahaanaya mana walaacayno waa aragtaan kaasito ka walaaci maayo waxa la abiyaa qof ilaahay yaqaana ilaahay ma yaqaano muuse ma yaqaana inta la gruubka ahina ma taqaano waxaan leeyahay intaas waxba iyaga halkaa u dhaafi maayo madax xudun annagu waxaanu nahay jamhadda xaq u dirirka ee la yiraahdo dhulbahante waxaanuna la midnahay la dhimanaa dhulbahante iyo fiqishini go'aamadii laga soo saaray Laascaanood qabiil ma qabsan karo muuse bixiyo haddaan adigu jahaaday oo dawladda Soomaaliyeed ku jahaaday war annagu kulama jahaadin oo nama qusayso jahaadkaagu war adeer annagu haddeer jahaad noo balnaayay adeer oo nada oo nooga bax dhulka iyaga oo ciideeda noo daa qabiil ma qabsan karo haddii allaha leeyahay oo islaamtiin isaaq nimanka isaaq ee odayaasha ku hadlaya leh qaybaan waxaan arkayay iyadu waxa ku hadlaysa oo leh dhulku waa Soomaaliland waa dhul qabiil ma noqdo annagu dhulbahantan leeyahay dhulka iyaga hadaan noqono China ku xiraanayna ma garatay adeer oo nooga bax dhulka iyaga inna ma khasbi kartana annagana bismillaahir rahmaanir rahiim haddii aanu nahay degmada Xudun waxaan isugu soo baxnay maanta shucuurtayadana aan ku muujinanaa go'aankii 33 dhulbahante iyo fiqishini ay gaadheen ayaanu ku go'aano ku gowracanay kaasaanu ku go'aano ku gowracanay mid golo sare karo iyo mid golo hoose karo toona caado qaate una daba fadhiisan mayno dalkayaga dibna u dhagaysan mayno dooni mayno caado qaatana nama matalo ama golahaas ha tago ama golo sare ha tago iyo saddexda ah oo gudida ah oo dhulbahantiyo fiqishini baanu taageeraynaa waanu furaynaa dhulkayaga nabadgelyo haddayna uga bixin Soomaaliland dhulkayaga kaasaanu ku furaynaa kaas waanu ku banaysanaynaa dhulkayaga xoog baan ku furaynaa rag iyo dumar waa taageersanahay waanu wada soconaa waa isku duubanahay
rag iyo dumar waxaanu doonaynaa inaanu Soomaaliland waddanka ka xoreysano oo aanu u kacno shiid baanu nahay waanu xoreysanaynaa الرحمن الرحيم waxaanu taageersanahay gudidii 3 ahaa ee fiqishini iyo dhulbahante ayaanu taageersanahay Soomaaliland ma rabno dadka yaga ay leysana waanu ka xunnahay waanu ku shahiidaynaa qoryahaanu qaadanaynaa waanu la dagaalamaynaa beeri qaata iyo qaadacaata dadka dhiigiisa iibsadayna ma rabno ee Soomaaliland ku jira haduu yar yahay haduu weyn yahay ma rabno waxaanu rabnaa na doonayno inaanu la dagaalano inaanu ku shahiidno sidii kuwii laascaanood ku dhintay inaanu saa ugu shahiidno oo la dagaalano oo iska celino oo qoryaha qaadano oo gabdhaha iyagu hadii aanu iyo ragba aanu la dagaalano iyo dhalinyaradu ma doonayno ma rabno waxa kaasaan oo dhaxa waxaanu rabnaa inaanu ku shahiidno oo iska saaro ilaa maxaa la bisha labaad aanay nagu dhaafin hadii aan la idmo Soomaaliland dib dambe aanay dhulka iyaga u soo galin oo dhulka iyaga u joogin oo ha naga tageen oo ha naga noqoto oo ha ku noqoto dhulka ay ka timi oo iyaga iyo Jabuuti baa dabada iska wada naxasuuqay ha naga noqdaan odayga maxamed maxamuud cawiil kawte degmada xudun ee gobolka Sool degmada xudun ee gobolka Sool waxa saaka la wareegay jamhadda xaqudirka ah ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxayna hoos u dhigeen calanka Soomaaliland iyagoo saaray calanka khaatumo ee maamulkaasi waxayna rij buluug ku buufiyeen astaamihii calamada Soomaaliland ee ku xardhan fagaarayaasha magaaladaasi jamhadda xaqudirka iyo taageerayaasha ayaa isugu yimid fagaaraha xorriyadda degmada xudun ee gobolka Sool waxayna halka kula hadleen shacab kala duwan sidoo kale waxay taageero mid loo muujiyeen 33 gudida ee dhulbahante iyo fiqishini waxayna sheegeen in mar walba garab taagan yihiin go'aamada ay soo saareen gudigaasi waxayna guud ahaanba ciidamada Soomaaliland ugu baaqeen inay ka baxaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn sidoo kale ugu horreyn waxa halka ka hadlay taliyaha jamhadda hogaaminayay taliye gaadhgaadh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu nahay jamhadda xaqudirirka gobolada SSC Sool iyo Sanaag iyo Cayn qolada isaaq waxaan leeyahay ismadoodu waxay dhaheen dhulma guure dad baa guura haddaba yaryaga dhulka ku fududee ka guureen annagu ma guurano dalka yagana annagaa leh calankaasuna sida uu halkaa u furay uu sarraanayo wiilka ka rogeena ha u yimaado wiilka ka rogaya ha u yimaado haddaanu indhaha dib hore uga qarsan mayno inta aan wiil laga hadhayna waa ku dhimanana dalkayaga iyo dadkayga gabadh maalin dheer suuqa dhexdiisa lagu dilayo maaha waxaan u dulqaadan karno waxaanu yeeli karno maaha waxna mari kara maaha haddaad islaama tihiin horta konje haddaad islaama tihiin waa la inaabiyey ismadaa inaabiyey dumarkaa inaabiyey shacabkaa inaabiyey waxba waad ku qaadan weydeen haddaba kaasaana kala saaraya qori waxaan hayno kala saaraya ma jirto waxaan idin kaloo idin leeyahay oo aan u sheegayaa Muuse Biixiyow adeer xiliyo laysma dhibaadiyo taariikh baad u doonaysaa sacab Muuse u doonaysaa huuna taariikh u doonaysaa aan taariikh lahayn xabaalihii gaaladii aan dilay baad siyaarataa ee Hargeysa aan dhigay ee ku aasan aniguna waxaan ahay Muuse Biixiyow kii dhaymoole markii gaalka uu macatabka kuugu wiilashaadii u xidhay adigaaba ka mid ahaa mayaabahaaba ahaa markii macatabka uu xidhay gaalku kii kaa furay baan ahaa kii 6,666 hal maalin xudun meesha la yaajid baa ugu laayay baan ahaa si aan diinta islaamka kugu soo celiyo ma yeelayo kaama yeelayo maleehi
mid carruurtiisa aad ku layso laascaanood caqligayga ha caayin caqliga dhulbahantana caybay ku tahay waxaan idin leeyahay dhulbahantaan hal odhanayaa horta kacdoonkani ma istaagayo wuuna socdaa israaqow caqliga ka shaqaysiiya wuxuu yidhi saadle cilmi aabbe cabdilaahi ow tali oo dib u tali war waxaan leeyahay waxgaradkaysa haddii waxgaradi ku jiro war waxaan leeyahay salaadiinta war waxaan leeyahay cuqaasha war taliya war hooy dib u taliya war dhulbahanta maanta waa midh war waxaad nagaga faa'iidaysateen kala qaybsanaanta war SSC midh weeye war nama celi kartaan dhulbahanta waxaan leeyahay iyo reer SSC waxaan idin leeyahay adeer isimada isugu yimi laascaanood ee dhulbahante waxaannu ka sharaf badnayn idinkoo dhowr iyo 30 waxaannu ka sharaf badnayn markii labada isim keliya aanu lahayn kan faarax garaad iyo kan maxamuud garaad keliya aad ahaydeen baannu dhulbahanta ka sharaf badnaa maanta yaad koofiyadaha cadcad u soo qaadateen yaad cimaamadaha iyo gawaadhida cadcad u wadataan waar jabhadeeya isaaq waxay ka soo noqdeen ingiriis bay ka yimaadeen oo maraykan bay ka soo noqdeen markay jabhadaynayeen oo culimmadooda iyo waxgaradkooda iyo caaqiladooda iyo ismadooda qoryaha qaatay waar isaaq ku tagi maayo qori buu ku tegayaa qori xabad buu ku tegayaa xabad halla jabhadeeyo reer SSC waxaan ugu baaqayaa war cad baan idinka rabnaa nimanka la yidhaahdo baynu ka rabnaa isimada oo degdega laascaanood ha noolaato soomaaliya ha noolaato SSC ha noolaato ha guulaysato sacdaynku ha guulayso SNM ha baxdo SNM ha dhacdo muuse biixi ha dhaco ina kaahin ha dhaco idinkuna noolaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dowladda maamulka Soomaaliland ee jabhadda SNM waxaan u sheegaynaa maamulka Soomaaliland waqtigii waa soo dhamaaday qabcadii way dhamaatay aad noo daadin jirteen way dhamaatay allihiin hadduu alla yahay waxaanu doonaynaa dad deerisaynu nahay inaad si nabadgelyo nooga baxdaan haddii aydaan bixin shahiid baanu nahay qorigaasay noo dhexa qori caaradii bay noo dhexa kaasay noo dhexa la taagaya noo dhexa qabcadii way soo dhammaatay naga baxaanu idin leenahay intaa waxaa wehelisaa waxaa laydinka faa'iidey labaa laydinka faa'iidey oo dhulbahanta idinka faa'iiday dowladaha SCC iyo khaatooyada SCC ay idinka faa'iideen maamulada waxay idinka faa'iideen xadhig iyo xabsi iyo xasuuq labadaasay idinka faa'iideen war miyaad rabtaan naga baxa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo baxnay inaannu taageero guddida laga doortay degmada laascaanood oo uu hoggaaminayo garaad jaamac garaad cali garaad jaamac garaad ismaaciil guddidaas ayaannu saaka inaannu taageero isugu soo baxnay go'aammada horudhaca ee ka soo baxayna waa ku qanacsannahay annagoo ah beesha maxamed siyaad degmada xudun waa ku qanacsannahay waxaannu ku faraxsannahay dhulbahante oo u qaybqaybiyey maamulka Soomaaliland colaad baana uu dhex dhigay mar hadday maanta cadowgoodii arkeen iyagii isku tashanayaan meel uga soo wada jeedaan taana waa ku faraxsannahay kaga hadlayno dadka dalka ay maalinta aynu isku haynaa aanu inaga dhaxayn deris guud baynu nahay derisnimadeenna inaynu ilaashanno guud baa loo baahan yahay laakiin xal kale oo inaga dhaxeeya iyo dhaqan kale oo ina dhex yaalla midna ma jiro waa kuwii Hargeysa iyo Burco iyo inta ay sheegtaan ay isxigaan waa kuwii wixii halkana wixii bay la soo galeen waxba inagama dhaxeeyaan habar jecel qaybaanu maqlaynaa hadlaysa habar yoonis waa maqlaynaa waa inteeda reer baadiyaha ah waxa ku hadlaysaan ay leediin kuma raacsanin waa sax anaguna ma rabno inay saan noqoto waxaan rabnaa inaad ka baxdaan haddaa bixi weydaan wixii loo kala dhashay ee la kala ahaa la ahaanaya mana walaacayno waa aragtaan kaan sito ka walaaci maayo waxaa la abhiyaa qof ilaahay yaqaana ilaahay ma yaqaano muuse ma yaqaana inta la gruubka ahina ma taqaano waxaan leeyahay intaas waxba iyaga halkaa u dhaafi maayo xudun annagu waxaanu nahay jamhadda xaqudirirka ee la yidhaahdo dhulbahante waxaanuna la mid nahay la dhimannaa dhulbahante iyo fiqishini go'aamadii laga soo saaray laascaanood
qabiilna qabiil ma qabsan karo musabixiyo haddaad adigu jahaaday oo dawlad Soomaaliyeed ku jahaaday war annagu kulama jahaadin oo nama qusayso jahaadkaagu war adeer annagu haddeer jahaad noo banaay adeer oo nada oo nooga bax dhulka iyaga oo ciideeda noo daa qabiilna qabiil ma qabsan karo haddii allaha leeyo oo islaamtiin isaaq nimanka isaaq ee odayaasha ku hadlaya leh qaybaan waxaan arkayay iyadu waxa ku hadlayso oo leh dhulku waa Soomaaliland wadeer dhul qabiil ma noqdo annagu dhulbahantan leeyahay dhulka iyaga hadaan noqdo China ku xiranayna ma garatay adeerow nooga bax dhulka iyaga inna ma khasbi kartaan annagana bismillaahir rahmaanir rahiim haddii aanu nahay degmada Xudun waxaan isugu soo baxnay maanta shucuurtayadana aan ku muujinanaa go'aankii 33 dhulbahante iyo fiqishini ay gaadheen ayaan ku go'aano ku gowracana kaasaanu ku go'aano ku gowracana mid golo sare karo iyo mid golo hoose karo toona caad qaate wala daba fadhiisan mayno dalkayaga dibna u dhageysan mayno dooni mayno caad qaatana nama matalo ama golahaas ha tago ama golo sare ha tago iyo saddexda ah oo gudida ah oo dhulbahantiga fiqishini baanu taageeraynaa waanu furaynaa dhulka iyaga nabadgelyo hadayna uga bixin Soomaaliland dhulka iyaga kaasaanu ku furaynaa kaas waanu ku banaysanaynaa dhulka iyaga xoog baan ku furaynaa rag iyo dumar waa taageersanahay waanu wada soconaa waa isku duubanahay rag iyo dumar waxaanu doonaynaa inaanu Soomaaliland waddanka ka xoreysano oo aanu u kacno shiid baanu nahay waanu xoreysanaa dhulka iyaga maan raxiin waxaanu taageersanahay gudidii 33 ahaa ee fiqishini iyo dhulbahante ayaanu taageersanahay Soomaaliland ma rabno dadka iyaga ay laysana waanu ka xunnahay waanu ku shahiidaynaa qoryahaanu qaadanaynaa waanu la dagaalamaynaa beeri qaata iyo qaadacaata dadka dhiigiisa iibsadayna ma rabno ee Soomaaliland ku jira hadduu yar yahay hadduu weyn yahayba ma rabno waxaanu rabnaa ma doonayno inaanu la dagaalano inaanu ku shahiidno sidii kuwii laascaanood ku dhintay inaanu saa ugu shahiidno oo la dagaalano oo iska celinno oo qoryaha qaadano oo gabdhaha iyagu haddii aanu iyo ragba aanu la dagaalano iyo dhalinyaradu ma doonayno ma rabno waxa kaasaan noo dhaxa waxaanu rabnaa inaanu ku shahiidno oo iska saaro ilaa maxaa dhacay bisha labaad aanay nagu dhaafin haddii aan laydmo Soomaaliland dib dambe aanay dhulka iyaga u soo galin oo dhulka iyaga u joogin oo ha naga tageen oo ha naga noqoto oo ha ku noqoto dhulkay ka timi oo iyaga iyo Jabuuti baa dabada iska wada naxasuuqay ha naga noqdaan odayga maxamed maxamuud cawiil kawte degmada Xudun ee gobolka Sool.